bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka kooban ee dalka TV aniga Aruun Maxamed Cali ah ayaa halkan idinkaga akhrinaya qodobo dhowr ahna waad ku daawan doontaan hadduu eebe idmo aanse ku bilaabay howlihii dhismaha maamulka Galmudug oo la hakiyay wararka aan ka helayno magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in muddo toddobaad ah oo ka soo bilaabatay maanta la hakiyay howlihii dhismaha maamulka Galmudug oo ballanku ahaa in la guda galo toddobaadkan hakinta hawshii dhismaha maamulka Galmudug ayaa waxaa la sheegay in looga gol leeyahay in muddadaas toddobaadka ah lagu soo afjaro khilaafka ahlu sunna iyo dowladda federaalka oo ka dhashay qaabka ay dowladdu u rabto in loo dhiso maamulka iyo qondo ay rabto ahlu sunna inay ku yeelato maamulka cusub ee loo dhisayo Galmudug xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in Muqdisho laga wacay Cabdisamed Macalin Maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha kaas oo isku xire u ahaa dowladda federaalka iyo ahlu sunna Cabdisamed ayaa la sheegay inay dowladdu ka dalbatay inuu ka qayb qaato xalinta tabashada hoggaanka ahlu sunna ayaa horey dowladda federaalka ugu eedeysay inay uga baxday heshiis ay ku wada gaareen magaalada Dhuusamareeb waxayna haatan ku howlan tahay dhismaha maamulka madax bannaan kan ay garwadeenka ka tahay dowladda federaalka arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta ay wasaaradda arrimaha gudaha liiska 44 oday oo soo xulaya baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug ay ku wareejisay guddiga farsamada maamul u dhisidda Galmudug wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in caawa ay kulamo xal looga gaarayo khilaafkaas ay dowladda iyo hoggaanka ahlu sunna uga bilowdeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug dowladda Soomaaliya oo guul ka sheegatay dagaal ciidanka xoogga dalka iyo kuwa al-shabaab ku dhexmaray gobolka Gedo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta 6 xubnood oo ka tirsanaa al-shabaab waxa ay ku dileen agagaarka degmada Baardheere ee gobolka Gedo Maxamed Cali Cabdilaahi oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Baardheere ayaa saxaafadda u sheegay in ay iyagu weerar ku qaadeen halka ay ku sugnaayeen al-shabaab markii ay xog ka heleen dadka deegaanka taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka xoogga ay halkaasi kaga gubeen al-shabaab 2 gaari oo nooca dagaalka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyaga oo kaashanaya shacabka ku dhaqan deegaanada ay maleeshiyaadku ku dhuumaaleystaan qaramada midoobay oo Abiy Ahmed ku eedeysay inuu xasilooni daro ka hurinayo Soomaaliya dhowr bilood kadib markii uu ku guuleystay biladda caalamiga ah ee Nobel ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa iska difaacaya eedeymo ku saabsan inuu faragelin ku hayo arrimaha dalalka deriska ah laba warbixin oo ay soo saareen guddiga khubarada qaramada midoobay ayaa Abiy Ahmed ku eedeeyay inuu xasilooni daro ka abuurayo South Sudan iyo Soomaaliya oo ah 2 dal oo uu arrimahooda gudaha aad ugu lug leeyahay sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi eedeymahan ayaa imaanaya iyada oo madasha xisbiyada qaran iyo maamulka Jubbaland ay ku eedeeyeen ciidamada Itoobiya inay dowladda farmaajo ka caawinayaan inay farageliso arrimaha maamul goboleedada dhinacyadan ayaa sheegaya in Itoobiya ay ciidamo aan AMISOM ka tirsanayn ku soo daabulayso Soomaaliya si ay u fuliyaan hadafyada madaxweyne farmaajo uu kula wareegayo maamul goboleedada safiirka Itoobiya ee Kenya Malis Elem oo la hadlay Daily Nation ayaa sheegay in eedeymahan aysan xaqiiq ahayn mid ka mid ah tiirarka siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa ah inaan la faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale taas waa taariikhdeena ayuu yiri waxaan si daris wanaag ah u cayaarnaa kaalin aan wax ku dhisayno kaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay safiirka Itoobiya ee Kenya dowladda Kenya oo loo doortay ilaalinta xeebaha bariga Afrika shirka ururka caalamiga ah ee badaha oo ka dhacay dalka Ingiriiska ayaa lagu doortay golaha maamulaya ururkaas
ururkan oo ay xubno ka yihiin dhammaan dalal kale xeebaha iyo kuwa ku dhow ayaa waxaa doorashadiisa lagu qabtay magaalada London ee caasimadda dalka UK. Kenya oo xubin ka ahayd golaha ayaa dib loogu doortay kursiga iyada oo wakiil ka ah dalalka dhaca bariga Afrika ee kala ah Burundi, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Soomaaliya, South Sudan, Tanzania iyo Uganda. Wasiirka wasaaradda badaha ee Kenya Nancy Kariuki ayaa ku faantay dib u doorashadooda ay Kenya u suurtagelinayso in ay qayb ku yeelato maamulidda iyo go'aan ka gaaridda arrimaha badaha caalamka. Kenya oo uu hadda khilaaf dhinaca badda ah kala dhexeeyo Soomaaliya ayaa u muuqata mid dadaal dheeraad ah ku bixinaysa sidii ay kuraas uga heli lahayd fadhiyada caalamiga ah ee lagu jaangooyo qadiyadaha caalamka. Jimcihii waxa ay Kenya ku fashilantay inay noqoto shir guddoonka urur goboleedka IGAD waxaana loo doortay dalka Suudaan. Bisha Juun ee sanadka dambe waxa uu tartan kala dhexeeyaa dalka Djibouti waxaana Kenya doonaysaa in ay ku guuleysato mid ka mid ah 10 kursi ee aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Ururka badaha caalamka waxaa hadda Afrika ku matalaya Kenya, Masar, Morocco, Koonfur Afrika iyo Liberia waxaana ay ku jiraan qaybta siida. Waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warka kooban ee dalka TV. Iminkana haddaan warka dibadda eego, Leema oo diiday qorshaha abuurista hal xisbi siyaasadeed. Wasiirka difaaca Itoobiya oo aad ugu dhawaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa dhaleeceeyay qorshaha loogu bedelayo xisbiga talada haya. Wareysi ay laanta Oromada la hadasha ee VOA-da la yeelatay habeenkii Jimcaha ayuu wasiirka difaaca Itoobiya Leema Megersi ku dhaleeceeyay tallaabada looga guurayo isbahaysiga qowmiyadaha ku saleysan ee waddankaasi soo maamulayay muddo 30 sano ka badan. Waxaan qabay fikirtaas ka duwan markii ay bilowdeen wadahadallada mideynta EPRDF, xitaa haddii ay taasi dhacayso ma ahan in si degdeg ah loo sameeyo, ayuu yiri Leema. Abiy Ahmed oo haysta abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa qorshihiisa ah in isbahaysiga EPRDF laga guuro oo loo guuro xisbi keli ah. Waxaa ka soo horjeestay xisbiga xoreynta Tigreega ee TPLF kaasi oo ahaa xisbi aad u awood badan waqtigii uu talinayay hogaamiyihii geeriyooday ee Meles Zenawi. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta banaanka u soo baxday ee u dhaxaysa siyaasiyiinta ugu miisaanka culus dalka ee ka soo jeeda qowmiyadaha Oromo ay soo kordhin karto hubanti la'aanta siyaasadeed ee doorashada bisha May ee sanadka dambe la qorsheeyay, ayna dhaawacayso ajendaha dib u qaabeynta dalkaasi ee uu wado Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Leema ayaa horey u soo noqday madaxweynaha gobolka ugu ballaaran uguna dadka badan ee Oromada. Abiy Ahmed oo laftiisu ka soo jeeda qowmiyadda Oromo ayaa awoodda dalka la wareegay bishii Abriil ee 2018 kadib banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeday oo qowmiyadaha Oromo iyo Amhara ay halkaasi ka wadeen muddo 2 sano ah. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi noogu soo idlaaday warkii koobnaa ee aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee dalka xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Warka kooban saakay anigoo Ruun Maxamed Cali ayaa halkan idinkaga akhrinayay. Intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano Alle.